biyaha ceel jaalle ilaa ku tin bas manne labadaas albaab ma qaadi karo hadayna albaabka aysan xirnaan lahayn ama albaabadaas ay yaraan lahayn waxa waaye xaafadda Dhagaxjibis laga moodo qeyn ama xaafadan oo waxa uu taako wax laga qaban waayo waxa qeynaa hadii wax laga qabtana billaah shalay dadka ka qabtaan sheekada dhan meesha lagu hayo fakti hore baa laga fikirin hadii laga fikiri lahay la isku yeeshay fikrad darsa lahay injineer weyn ee nashqad ay sheegaa oo weyn loo imaalahay caqabada magaalada ka taagneed ma taagneeteen meeshaan waa u jeedin waa kiligii Dhagaxjibis ninkii yaqaano meeshaan waa meeshii kiligii ka galayeen oo webi ka galayay marka meeshaan waxa waaye caqabad weyn ka jirtay saaka ka hor saaka meeshaan marka waxa lagu daraa laba irdood oo waaweyn oo la yiraahdo awal saddex irdood oo yaryar ay lahayd oo hadana aad u furmeenin inkasta meesha hadda caqabad weyn magaalada ku haysaba oo rabta inta dhanba in la wada jabsho oo la baxsho marka hadda saaka waxa lagu daraa laba irdood oo waaweyn insha Allah oo la yiraahdo marka roob kale aan doo imaado waa la arki doonaa wixii kale oo ku soo saacido hadday irdaas biya macnaha ay ka bixi waayeen ku filaa waayeen maxay tahay sababta keentay inaad irdi kale u furtaan marka sababta kan waxa waa waadiga biyaha uu keenay iridda ay ka galayaan webiga kala weyn iridda awal waxay ahayd adiga 20 mitir haddana 5 mitir camal laga dhigay ishaag meesha webiga ka galayeen caqabad ugu weyn oo kaantina biyaha Shabeelle xaafadaas ku timbiyay Dhagaxjibis u kala weecdaan caqabadaas waa mislada marka waxa ka bedeli karaan caqabadaha laba irdood hadii lagu daro wax weyn hadda ka bedel ma hadoo la yiraahdo awal irdaha nagu yaraay hadda maanta waa u jeedin meesha shaqada ka socoto waxa shaqada ugu socoto waxa waa in irdin la balaariyo si ay ummadii hadda labada gees biyaha ku yaraaday ay meesha ugu baxaan caqabad toos awal ka jirta laakiin hadda aan wixii ka dambeeyay inaan badbaadi doono malayna insha Allah idinka Ilaahay dadka xaafadda labada dhinac kaliya ka jireen waa baxeen ayukan wax sahay iyo wax joodari iyo wax maacun ay qaatay lahayn ay banaanka baxeen marka saas darteed markii la arkay kambanigi iyo xaafadda markay iswareysteen waxa la gartay in irdaha la weyneeyo qabada irdaha waaye insha Allah idinka Ilaahay hadda wixii ka dambeeyay kulay tambatam aqlab la doonaa ugu dambeynta in la jibiyaa taa macquul waa ugu dambeynta haduu la yiraahdo anfici waa labada irdood oo lagu daraa shan irdood ay noqonayeen hadii wax soo kordhi waayeen macna la soo kordhi waayeen dhammaan wala jibin haduu la yiraahdo maxay ka bedeli kartaa marka caqabadaha isku timbiga Dhagaxjibis waxay ka bedeli kartaa irdaha lagu yaray irdaha furma oo la furaa lagu yaray saas darteed maanta laba irdood lagu dara la yiri labadaas irdood hadii wax nafis leh oo dadka anfac noqdaan waa alxamdulillah hadii noqon waayeen waa laga tashanaa inama waa la iska burburinaa haduu la yiraahdo insha Allah idin Ilaahay biya yaani ku yaraatay meeshii iridii ku yaraatay marka iridii la fakina beledweyne Dhagaxjibis darbi ku diidin bal waa in la wado oo la ogaado wixii wax kasta oo Soomaaliya oo xaafadaha iyo wax si kasto waawiga markuu uu qaadi waayay waxay ka dilaaceen nuur baashi ku tiimbo kacday marka sidaas daraadeed ayaan rabnaa in yaani aan fakino baalkii waana ogaanaynaa waxaan isla wadno nimankii hore oo yaani hawsha waday iyo annaga xaafadda iyo wixii yaani qalqaalo haayo dhan marka sidaas in la ogaado ayaan rabnaa bigaan waa hadda maanta la tumahayo waxa ka xidhay dhowr iyo toban xaafadood waa kana dirbiga hadda waa kaas saas loo qaxaa waxa waaye biyaha ilaa iyo inta la soo qoday ilaa inta biyi meesha waa qaadi waayeen waa kaas hadda albaaba loo sameeyay lahay saameynta weyn oo meeshana waxa waaye biyaha ka hor marka la soo laabtay dirbigaas la dhisay kora loo dheeray dirbigana waa yaraay waayo Dhagaxjibis waxa dhan sababay inay biyaha qaxiyaan dirbigana la gaabshay dirbigaasna aad loo dheeray marka sababta caqabada meeshaas inooga timid anaga maxay ka bedeli kartaa marka dhibkan ku timira Dhagaxjibis hadii la fikir kaliya dhibkan haysto iyo waxa ka bedeli kartaa albaabkana albaab yare waayo wuxuu furan yahay intaas ilaa xusulkaas uu furan yahay in macnaha la furo ilaa xusulkaas albaabka ku habooneen waaye biyahana waxay sameeyeen ku tiimbo ilaa ceel jaalle biyaha ceel jaalle ilaa ku tiimbo simanne labadaas albaab ma qaadi karo waayo intaas inay furan yihiin wax weyn ma okay maxay tahay marka faradu meesha u diraysan reer ku timbira Dhagaxjibis waxa uu tirayaa hadana meeshan si degdeg looga soo jawaabin anaga waxa la wixii kala kulanno waa iskaga xaqeyn anaga hadii wax laga qaban waayo waa xaqeyn hadii wax laga qabtana billaah shalay dadka ka qabtaan hadii aan nahay dadka ku dhaqan xaafadda Xawtaako gaar ahaan laanta Dhagaxjibis waxa waa caqabada ugu weyneed ayuu noo keenay wadayaashii ka yimiday
buuraha oo ku soo rogmaday magaalada beledweyne sababtana waxa uu ahaa albaabadaas oo yaryar oo awalba injineeradii dhashay iyo shaqadii meeshan ay ka socotay saan jecelahay dad bareefada iska wateen oo dan guud oo dadka ay u wada sameeyeen ahayn sidaas ay tahay haddana meeshii waxa laga dhisay 4 albaab sida ay sheeg 2 albaab laga dhisay labadii albaabna way ku filnaaway saxaafadda waxa xaafadda wada barakiciyay oo xawtaaka iyo kuushin siiba qaybta kuushin ugu darna qaybta xawtaaka ugu darneed waxa ugu darneed in albaabkaas xirnaa hadayna albaabkaas in xirnaa lahayn ama albaabadaas ay yaraan lahayn waxa waay xaafadda dhaxjiis laga moodo qaxna ma xaafadan oo xawtaaka qaarahan qaybtan dhaxjiis sababtoo dhaxjiis waxa barakiciyay waxa ugu daran oo albaabadan oo biyo ku xishay oo caqabad ugu weyn lahaa albaabadii yareeray waxa waay hadana labadii darbiyood oo saan xogta aan ku haynana in labadii darbi lagu daray intay dadka xaafadda xagga oo dhankaan ay sheegay oo ahay in dhowrta ay ka soo cawdeen kadib ayagana wax loogu daray anagana dhankii dhaxjiis aan waxba loogu darin caqabadaas ugu weyn ay jirto marka sidaas darteed waxaan jecelnahay in sidaas qaybta loogu daray qaybta kale oo dhaxjiis in loogu daro saas loogu dheeray albaabka meeshaan la xiro albaabada yaryarka laga wada dhigay in la weyneeyo albaab weyn loo sameeyo lana nadaamiyo insha Allah reekutimbo waxa waa kulley waxa loogu talagalay waadi yar oo meesha loogu talagalay ayaa jiro oo kulley rag maamul iyo nidaam sheegtay ay meeshaan ay dhiseen oo saan ay carro u dhiseen sidaas darteed sheekada dhan oo meesha lagu hayo fakti hore baa laga fikirin hadii laga fikiri lahay la isku yeeshay fikrad darsa lahay injineer weyn ee nashqada ay sheegaa oo weyn loo leeyahay malahay caqabada magaalada ka taagneed ma taagneeteen maxay tahay marka fariinta dirayna waxay tahay albaabadan yararka ah oo meesha lagu yareeray in ay sheegaa waa sida u dhaqsiyaha badan laga soo jawaabo albaabadan la waaweyneeyo waxa waa darbiyadan oo shubka laga dhigayna kor loo sii qaado si xaafadan dhaxjiis ay dib dambe inuu soo noqon biyo kusoo dhawow abka xiisaha badan ee qanciye waxaad ka daawan kartaa filimada Hindiga, Ameerikaanka iyo kuwo kale oo xiiso badan. Hadday ahaan lahayd musalsalada Hindiga, Turkida ama Ameerikaanka oo af Soomaali lagu turjumay. Waxaan ka marnayn ciyaaraha live-ka ah oo aad ka daawan kartid. History is what it would be. Iyo waliba TV-yada Soomaalida dhammaantood. kasoo degso dooqaaga oo daawo bilaa internet rukumo bil ama in ka badan oo hel adeegyadeena caawin 24 saac 7 maalin ah degso muuqaalka aad ka heshid HD ku daawo dhammaan aflaanta iyo ciyaaraha waxaad ku daawan kartaa laptopkaaga mobilkaaga iyo waliba adigoo ku xiriirsan kara TV-gaaga haddaba ha moogan qanciyaha bulshada oo booqable store-ka kuna qor qanciye aniga waa qanciyay adiguna ma ku qanciyay